هلا عدو وجورينا كمان كان دقينا وتوصلنا أنا وحنا يدد شقيسنا أو بيرهدي فرنايا أنا كان من كان يقول لا ينويا وأنا دمينا يدد مساكين بير فلتة الله رسول بهنا أنا وحنا من كي صادر سلهنا قاعدان الصومالي وحق أصلاني نبقى إنه بدل ما يقول لنا أرو نبقى ناجره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوا صاحب ذا قيمة بدنا يكون كنال ابن بكر فلا ذات عصب بين سفلو جريسين شرقيات بن ما تصنتهاي ما تفيديوين وحوق سابسين ياهي ديجان كبريرة هيا حلا وحاكا دعاي قرح وين قرحاس وحا soo tuuray Ugandeska oo degan deegaanka dadkii oo dhan shacab weyna way isku soo bixeen maanta waxaa mudaaharaad lagu sameynayaa deegaanka bariire mudaaharaadkaas oo ku socoto maxay ahayd Ugandeska aad iyo dugsiilada waa la soo fasaxay waxaa jooga meeshan dhalinyaro culimada macallimiinta dugsiyada quraanka mid ayaan u wareysan doonaa. Okay, haddana waxaa soo qabtay odayaasha deegaanka waxaan soo dhaweynayaa awoowe soo dhawow. السلام عليكم. وحاكو هذا لا دب او كولي بريري او حسوق او افر قفود اسبتال جيفتو اي غريا رفادين مغالدان دبا ku jira dibka waa faday dawladda inay arintaas ku shaqeeyto fiiriso oo shacab Soomaali ana dawladda Soomaali ni xukumo hayte shacab hadii dhama ay xukume لو شو رافضين دبكان Ugandeska jeysidi in dawlad isku taliso afar qofooda isbitaal jiifta guriga rafaadeen oo ka guriga ana bariye todoba meel ka boqsay hadii ana dhimidahayn nafani hayta dhibaanina hayn dibkaan dawlad Soomaaliya isku taliso hal nin dhaamo hadii nin dhamaayaan beelkum dhaafanin hal nin sheego dawlad Soomaaliya waxa ku aslaanay dibkaan loo bedelo may guuri lin aro dibkana jire waxa sheegay in kitarga ahay ma jira meel walaakidii xirida nuski metran dhahoye hub weegna shay 4 metran hore tan cabira kitarga ahay islaamka di dawladda jirta ka loo qabado waqtiga loo qabado. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أنا ku hadlaya magacayga iyo kan odayaasha deegaanka iyo kan culimo diinka runtii waxaan nahay qayladaan أولاً الله سبحانه وتعالى يعني قيلدانتنا ودرسنا إن إلهي دباتها نقدر القاضي مد اللبات وحان قيلدان عن أناي دمان دولة كان أقوه السيء يكن أقوه سرية وحسن شيخ محمود رئيس الوزراء وزارة قاشاندقة تليها إذن كحوق ذلك الصوماليات دمان قيلدان بان نهي وحان نهي دبان dad shacab oo masaakiin oo beeraley ah oo beero tacabanaya aan shaqo ku lahayn siyaasad iyo dagaal iyo qori marka annaga dhibaato weyn ayaa waxa nagu haya ciidamadan ATMIS habeen kasta waa laga hurdilaayaa ciyaalkii iyo haweenkii qofaas daraad garab midfac dhawaaqiisa uu maqlay dhikar qabay ayaa nafta ka baxday oo la yiraahdo Haaji Ahmed Bulle Kooshin in la yiraahdo shalay daraad ayaan aasnay marka dhibaatada way nagu badatay xalay guri dadkiisa ay wada maalintii dhan ay soo shaqeynayeen ciyaalkii dugsiyada quraanka ee meelaha ay ku mashquulsanaayeen xilligii ay nasan lahaayeen iyagoo hurdaya xalay 4 saac iyo bar ayaa hoobiye qol jiifa ku dhaxdhacay iyadoo dagaalna jirin waxba jirin ayaa hoobiye guri qabsaday marka taasi cabasha ayaan ka nahay beesha caalamka iyo dhammaan inta ay khusayso waxaan rabnaa in arrimahan wax laga qabto cabashadaas aan nahay haddii la yiraahdana meesha deegaan idin ma noqonayo qaxooti noqdo oo yani kaamamka soo gala la leeyahayna hal cadow waa gurina kaamamka degayna waa tuugsanayna anaga waxaan nahay dad shaqaysanaya oo beerahoodii falanaya murqoodi maalaya murqoodi cunaya haddii la leeyahay ma shaqaysan kartaan oo ka guura meesha la yiraahdana hal cadeeyo meel kasta idaacadaha meel kasta waa gaarsiinayna anaga warkeena waxaan rabnaa in wax laga qabto nimankan culeyska ay nagu hayaan laga ilaaliyo hadii dagaal uu jiro dagaal baa jira iyadoo aan dagaal jirin dhowr habeen waa laga hurdilaayahay
waxaan noogu daran hadda guri la sheegay 4 qofood ama hadda halay isbitaal loo qaaday isbitaalka jiifaan 5 qof isbitaal hadda yaalaan iyagoo dhaawac ah waana la arki karaa isbitaal Madiina ay yaalaan hadda marka waxaan rabnaa in arrimahan wax naga qabto waa dhibanayaal baan nahay dad masaakiin oo beeralay ah aan dagaal iyo midna ku jirin baan nahay arrimahan waxaan rabnaa inaan wax naga qabto haddii guur la yiraahdo waxaan diyaar ku nahay inaan guurno midkan aad u jeedaan waa kana waa siwinkii oo lagu soo tuuray gurigii oo hoobiyaasha ku soo dhacay deegaanka waxaa la qaaday 4 qof oo kamid ah iyo aabahood 5 qof iyo 5 qof iyo aabahood ayaa isbitaal loo qaaday waxaana yaalaan isbitaal Madiino insha Allah hadan waxaan idin tusi doonaa qaar kamid ayaan wareysan doonaa insha Allah soo dhaw magacaaga anigoo halmiyo baakay nimanka leeyahay qaramada madow dhiban ku qabnaa maalin ma dhahdo habeen ma dhahdo ma laga hooyay karo ma laga harsan karo hoobi iyo wax daroon bay nagu wadaan hadda dawladda federaalka Soomaaliya tihiin nimankan wadankeena halay qaaday meel kale hal geeyo waa mahadsantiin waxaan sheegayaa nimankaas waana baabi'iyeen hantideena hoolaheena wax dhanay ku dhadheeleen ilmihiin ma harsan karaan odagoo waayeel ah shalamaatan oo hoobi ay soo ridan ayaa ku dhintay hadda gurigooda oo dariska iyo ahla hoobiyo ku habsaday ilaahay kuma soo diiday nimankan dhibaatayna ugu hayaan haddaad tihiin deegaanka biriire anigoo ah alimiyo baakay waa salaamantihiin dhammaantiina assalaamu calaykum walaalayaal waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa amisom waana baabi'isay amisom iyagoo dagaal dhicin oo iyagoo lala dagaalin ama magaalada hub ku duqaynayaan wixii oo ilmaha meeshaan masaakiinaan nahay isbitaal tabar uma hayno wax adiyaan dhaawac haddii na gaaro wax isku daaweyno ma haysano amisom iyagoo lala dagaalin ama magaalada baabi'inayaan qorrax hadday dhacdo si hub noogu wadaan meel fog kuma ridaan magaalada gudaheeda ku ridaan magaalada iyo xeradan waxay isku jiraan waxaan dhameen adiga 50 tilaabo 50 mitir waxaan dhameen magaalo u jirto magaalada meel ka baxsan kuma tuuraan magaalada ku dhex ridaan nimankan aniga aarsi uma noqono haddii tii bulmareer ay rabaan in naga aarsadaan aarsi uma noqono baashaan Soomaali way dadka hala baabi'i ay leeyihiin dadkan aniga Soomaali haddaan nahay aarsi uma noqono dadka aarsi ay ka rabaan har raadsadaan aniga shacabaan nahay dad beer falataan nahay dad deegaanaan nahay haddii dawladda ay rabto inaan guurso guura talbadiiro guura na dhaha waa guureynaa haddii maanta 2 cunug naga dhaawacanto waxaan isku daaweyno wax ma haysano isbitaal lacag uma haysano dawladda hana dhahdo barbariino meesha dagaal ma ahan guur hana dhahaano ma ahan deegaan hadda nool rabtiin noo imaado dadkan naga guuriya dadkii mar walba la dhaqma jiraan hala keeno amisom meeshan deegaan uma noqonayo haddii saan nagu hayaan deegaan uma noqonayo waana baabi'iyeen rafaada oday dara meeshan ku dhintay hadeer aabba iyo hooyo iyo adigan ilmahooda isbitaal jiifo wax isku daaweeyaan ma haystaan dadkan hal la qaado dadkan la dhaqmi karo oo adigana Soomaalnimo loo dhaqmi karo hal loo keeno odawaa iyo biixi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud taas ugu digeynaa si degdeg ah ku soo jawaabaan annaga xalay anagoo iska hurdayna madaafiic nagu la garaacay wax ilmo iyo waxaan ku leeyahay waalidkooda jiifa dhamaaday maalin walba saana nagu la garaacoyaa wax naga hadlaaya ma jiro annaka nimanka yaqaan laynooyaan waana dhameynaa dad masaakiin beer falata oo Alle rasuul u baahananahay waxaan nimankii soo dirsada ha naga qaadaan unuku waana dhameeyeen madaafiic meesha dagaal kama dhicin dagaal iska hor imaada ma jirin annagayna laynayaan ummadana Maxamed kala ma jeclo wixii soo dirsada waxaan naga qasaan dawladnimo ma ahan islaamnimo ma ahan unuka dhibaan qabnaa ilmihii iyo naagihii eber waaye gobolka Shabeellada hoos bariire gaar ahaan bariiraan joognaa maalin walba waana la duqayha meesha dagaal kama dhicin dhibaato saa'idaan haysata hadda islaantiin waxaan dadka soo dirsada ha naga qaadan haddii kale iska baxee nimaad ka maqantiin ma leh iska qaxaana liiraa unuku waa dhibtoonay dhibaan qabnaa dhib saa'idaan qabnaa maalin walba madaafiican ugu garaaca saan islaamnimo ma ahan ha naga qaado ma doonayno mana doonayno nimankaan Allah ma doonayno ma doonayno nimankaan Allah okay weli waxaan sii dhaxjinaa barnaamijkeena xiradii iyo deegaanka wax saas kuma jiro haday badato waxa ku jira waa 10 mitir xirada waa taraasaad u jeedaan xaafada gurigeena waa kaas dhinacaas waa wax weyn saas ugu mujira hadana dhalinyartii iyo deegaankii waxay ku calaacalayaan Uganda dooni mayno aad Ugandes cadaalad rabnaanay in cadaaladna loo sameeyo cadaalad rabnaa aniga
anagoo ku hadlayno afka deegaanka bariire wax dagaal ma dhicin habeen walba oo ilaahay keeno waxaa la soo tuurayaa madaafiic afarta geesaa loo tuurayaa xitaa magaalada kama fogo waatana magaalada wax dagaal ah kama dhicin waxaan rabnaa cadaalad ra'iisul wasaare madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ku leeyahay cadaalad rabnaa ra'iisul wasaare sidoo kale taliyaha ciidamada guud jenaraal Oduwa Yuusuf Raage waxaan ka rabnaa cadaalad rabnaa deegaanka bariire in ka hor 3 qof ayaa lagu dilay haddana ilaa hadda wali duqeys mid ay socotaa daradhow hal qof dhiikar oo qabo oo ku dhintay oo hoobi la soo tuuray hal sidoo kale 4 qof ku dhaawacmay iyo aabood hadda waxay yaalaan isbitaalka Madiina waa tahay haddana waxaan soo gaarnay gurigii uu ku dhacay hoobiyaha xalay soo tuuray dawladda ATMIS ama Uganda saad u taqaanin saad u jeedaan waa kana guriga qolka xalay la jiif oo ilmo ay ku dhaawacmeen saad meeshuu ka soo galan waa kaas si baaba ugu dhigay safitiyaashii dhan ewer way saad u wada jeedaan teeda kale xag wada fiir waa dhamaad intaan hal qol kaliya ma hadda qolkii ugu darnaa waa aan soo booqday waa kana inta qof jiifo oo meeshan qofka soo gale ma kula tahay inuu badbaadaa ilaa tiisa hadii ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu keeno mooyee laakiin waa inta la jiifa Allah meeshin uu soo dhacayn waa kaas waa 5 qof iyo aabahood oo ay ku dhaawacmeen xale waa kana safiitada mid kamid ah ay soo dhacday waa kana intan fiir baaba laga dhigay Soomaal hadana anagoo ku hadlaya afka deegaanka bariire waxaan rabnaa cadaalad meeshii madaafiica ka soo galay waa kana guriga saad wada jeedaan waa baaba qolka jiifka ku jirnaa waa kana meeshii aabaha iyo hooyada jiifta waa kana qolka labaadna waxa jiifay caruurta balse hadda waxaan ku jirnaa qolka koowaad qolkan waa baaba ayaa laga dhigay saad wada jeedaan waa kaas safiitadiina eber waaye dhulka la soo dhigay subxaanallah dadkan Allah subxaanahu wa ta'aala caafimaadka siiyo Allah subxaanahu wa ta'aala kagu soo bogsiyo waa tahay wali waxaan joognaa guriga banaankiisa aan soo baxnay waa kaas fiiri subxaanallah waa kana fiiri subxaanallah Allah subxaanahu wa ta'aala ha ka bogsiyo aamiin guriga waxaa soo booqday dadka deegaanka saad wada jeedaan waa kaas maamooyinkii dhan deegaanka meesha ay soo booqdeen waxaa la isu soo baxay dadka meesha ku dhaawacmay ay soo fiiriyaan laakiin hadda waxay jiifaan isbitaalka Madiina saad wada jeedaan halkan waa meeshii oo firirka oo ka soo galay oo firirka oo waxyeel u geystay meeshan waa meesha la jiifay canugii oo jiifay haddana waxaa galnay qolka labaad waad wada jeedaan gurigii dhan baaba u waaye waxaa la rabaa cadaalad waa kaas meesha canuga jiifay dhiiga saad wada jeedaan waa kaas subxaanallah Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leh oo intaan nagu dhaamay waa kaas gurigii dhan baaba u waaye alaabii dhan way jabsan yihiin armaajadii eber waaye gurigiina dhammaad waaye waana guri oo goordhow la dhisay
saad wada jeedaan waa kaas waa baaba guriga dhan waxaad u moodaa guri oo 3 sano laga maqnaa waa kaas fiir subhanallah dhiigii waa kana subhanallah فيديوغان ديك سومالي هدو كوجيرو شيرغري غارسيا مدحوينها غارسيا جنرال ادوا يوسف راغي غارسيا رئيس الوزراء فضلا فيديوغان شيرغري waxaan rabnaa cadaalad ayaan u baahanahay